بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. daawadayaasha qanaadka alcaalamiya waxaa ku soo dhawaateen casharo aan ka akhrin doono maamulka iyo maareynta. casharadan maamulka iyo maareynta waa casharo aada muhiim u ah, qof walbana saameyn ku leh, una baahan yahay inuu wax ka ogaado maamulka. casharadan aan akhrin doono waxay ka koobnaan doonaan dhowr mowduuc. aan ka bilaabayno maxay tahay ama muxuu yahay maamulka. tan labaad aan ka hadli doono waxaa waaye hadafka ama ujeedooyinka maamulka laga leeyahay. saas oo kale waxaan ka hadli doonaa howlaha maamulka uu qabto. waxaan falanqeyn doonaa ururka muxuu yahay, saas oo kale heerarka kala duwan ee maamulka urur walba gudihiisa. waxaan kasii hadli doonaa meheradaha ama skillska looga baahan yahay dadka maamulka haya. saas oo kale waxaan ka hadli doonaa maxay tahay kafaa'ada ama qaabko ururka ku gaari karaa ujeedadiisa si heer sare ah. waxaan kaloo ka hadli doonaa maamulka ilaa halkuu gala. saas oo kale waxaan ka hadlaynaa maamulka ma cilmi baa ama waa fan, ma wax oo maaragtay qawaacid iyo cilmi leh miya, ama wax qof walba iska sameyn karo oo mumaaraso uu ku sameyn karo waaye. qaybta kale waxaa waaye qeybaha kala duwan ee maamulka uu galo ama majaalaadka ama fildiska uu galo. mowduuca ku xiga wuxuu noqon doonaa tatawurka ku dhacay ama horumarka fikirka maamuleed ee dhacay. waxaan ka hadli doonaa saas oo kale howlaha ururada ama shirkadaha ama munshi'aadka ay qabtaan, faamiska maxay qabtaan. ugu dambeyn waxaan ka hadli doonaa qaababka kala duwan ee ururada ganacsiga ay u sameysan yihiin. marka waxaa jira maraajic ama reference oo loogu laaban karo casharada aan hadda akhrin doono. waxaa ka mid ah referenceskaas kitaab la dhaho almafaahiim alidaariya alxadiitha. waxaa qoray doctor la dhaho fu'aad sheekh saalim iyo dad kale. waxaa kaloo ka mid ah kutubtaas alidaara alxadiitha kitaab la dhaho oo uu qoray mustafa najiib shaawiish. waxaa ka mid ah kutubada kale aan maaragtay marjic ahaan loogu noqon karo kitaab magaciisa la dhaho idaarat alacmaal oo uu qoray maxamed mustafa al-kharshuun. marka intaas kutub iyo kuwo kale ayaa maaragtay marjic ahaan loogu noqon karaa. haddaba waxaan usii gudagalaynaa casharka koowaad ee duruustan aan idin soo gudbin doono. casharka koowaad wuxuu noqon doonaa mafhuumka guud ee maamulka. maamulka guud ahaan maxaa laga wadaa. maamulka horta muhiim waaye, wuxuu muhiim u yahay dhammaan dhaqdhaqaaqyada bani aadamka uu sameeyo, waana maaragtay asalka maaragtay guusha mashruuc walba. mashruuc hadduu guuleysan rabo waa inuu maamulkiisa kafaa lahaadaa, mudiir fiican uu haystaa. si saa daraadeed ururada iyo shirkadaha waxay ictimaadaan mudiirada ama maamulayaasha kafaa'ada leh si meesha ugu dhacdo horumar ama growth iyo sustainability oo istidaama ah. labadaas shay ayaa urur walba u socdaa, inuu sii kobco, inuu maaragtay sii socdo. saas oo kale mihnada maamulka aada maaragtay sanadahan ugu dambeeya loogu soo jeedsaa. macnaha qof walba wuxuu rabaa maamulka inuu wax ka ogaado, wax uuna ka barto. sababtoo ah qofka hadduu
xitaa meel kale uu ku takhasusay sida engineerinka uu ku takhasusay, mustaqbalka maamulka ayuu u baahan doonaa mar walbo heerkiisa shaqa uu sii sara maro. marka caalam oo hadda waxaan ku jirnaa duni oo munaafasada ama competitionka ama tartanka uu farabatay, tartan xoogan ayaa jira. marka si ururka ama shirkadda tartankaas suuqa ka jira uu guuleysato, waxaa muhiim ah inay haysato maamul iyo maareeye tayo leh. marka waxyaabaha sifooyinka hadda dhaqaalaha adduunka ku sifaysan yahay waxaa waaye horumar iyo maaragtay kobac sariica. haddaba maxay tahay ama muxuu yahay definitionka ama qeexitaanka maamulka? maareynta maxaa laga wadaa? definitionka ama qeexitaanka ama tacriifka maamulka wuxuu noqonayaa in la kala wado, la kala socodsiiyo howlaha ururka uu qabto ayadoo la adeegsanayo shaqaalaha si loo gaaro hadafka ururka uu leeyahay. marka guud ahaan maamulka waxaa waaye howlaha ururkaas in la fuliyo ayadoo la adeegsanayo shaqaalihiisa ama bani aadanka ka shaqeynayo ururkaas si hadafka ururkaas loo gaaro. marka waxaa jira qeexitaano fara badan ay sameeyeen culummada maamulka. qaarkood waxay ka fiirinayaan markay qeexayaan maamulka qeybta maaragtay process aan ama camaliyal idaariya wax la maamulka qaabkee loo sameeyaa, qeybtaas ay ka fiirinayaan takhdiidka, qorsheynta iyo nidaaminta. kuwo kalena waxay ka fiirinayaan qeybta maaragtay suluuga ama dhaqanka behaviorka. kuwo kale markay maamulka ay maaragtay qeexayeen waxay ka fiirinayaan tacaamulka dadka dhexmara. kuwo kalena waxay ka fiirinayaan waxaa jira ay leeyihiin maamulka waxaa waaye الرجل الموهوب ama qof oo maaragtay la siiyey maamulkaba ilaahay hibo u siiyey. marka dhowr qeyb ayay ka fiirinayaan culamada markay qeexayaan maamulka wuxuu yahay. qaar kale waxay ka fiirinayaan qeybta oo go-aan qaadashada. haddaba culamada ugu waaweyn ee maamulka tacriifiyey ama qeexay waxaa ka mid ah Frederick Taylor oo ku qeexay maamulka inuu yahay in la garto si sax ah loo garto waxa ururkaas uu doonayo inuu gaaro. ururkaas waxaa u shaqeynaya shaqaalaha waxay qabanayaan in si sax ah loo garto, ka bacdi la hubiyo in ma aragtay ay sameeyeen waxyaabihii laga doonayay wadada ugu saxsan oo ugu wanaagsan uguna ma aragtay qarashka yar. marka taas ayuu ku qeexay Frederick Taylor. waxaa kaloo ka mid ah culamada waaweyn ee maaragtay cilmiga maamulka qeexay Henry Fayol oo ah ruwaadi ama hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee cilmigan wax ka qoray. waxaana uu ku qeexay maamulka inuu yahay mudiirka marka loo fiirinayo maamulka inuu u sameeyo tanabu wax la dhaho tanabu bilmustaqbal ama mustaqbalka waxa uu dhacayo inuu ma aragtay tanabu uu ku sameeyo oo prediction ama ma aragtay saadaaliyo mustaqbalka wax uu dhacayo, ka bacdi uu qorsheeyo, qorshihiisna ku dhiso saadaashaas, ka bacdina uu nidaamiyo. markuu nidaamiyo waxaa looga baahan yahay inuu soo saaro awaamirta iyo tacliimaadka shaqaalihii. waxyaabihii uu u nidaamiyay qof walba u dhiibay waa inuu dhahaa arrintaas sameey, ka bacdina tansiiq uu sameeyo coordination oo ah in isku xiro dadka shaqaalaha ururkaas ka shaqeynaya, ka bacdina muraaqabo ama kawarhayn ama control uu sameeyo. intaas ayuu ku qeexay Henry Fayol. culamo kale ayaa qeexday maamulka oo uu ka mid yahay Sheldon qofka la dhaho. asna wuxuu ku qeexay arrin oo maaragtay ururka ama sinaacada ama industry ka dhacayo, kaas oo maaragtay ujeedadiisa ay tahay in siyaasaadka iyo maaragtay tansiiq lagu sameeyo. marka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qeexitaanyada ama definitionska la siiyey maamulka. aad u mahadsantihiin. casharkeena kale intaan ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.